taliyaha qaybta guud ee booliska Galmudug General Bashar Abshir Geedi ayaa gaaray deegaanka Xirale ee gobolka Galgaduud bulshada ku dhaqan deegaanka Xirale ayaa waxa ay soo dhaweyn ballaaran u sameeyeen taliyaha iyo sidoo kale saraakiishii ku helisay socdaalkiisa taliyaha qaybta guud ee booliska Galmudug General Bashar Abshir Geedi oo safarkan ku mari doona degmooyin badan oo ka tirsan labada gobol ee Mudug iyo sidoo kale Galgaduud oo amni ahaan u hoos yimaada booliska Galmudug ayaa waxa uu bilaabay boqoshooyin iyo sidoo kale wada tashi uu la yeelanayo ciidamada booliska ee amniga mas'uulka uga ah bulshada ku dhaqan degmada Xirale taliyaha qaybta guud ee booliska Galmudug General Bashar Abshir Geedi oo safarkan ku mari doona degmooyin badan oo ka tirsan labada gobol ee Mudug iyo sidoo kale Galgaduud oo amni ahaan u hoos yimaada booliska Galmudug ayaa waxa uu bilaabay boqoshooyin iyo sidoo kale wada tashi uu la yeelanayo ciidamada booliska ee amniga mas'uulka uga ah bulshada ku dhaqan deegaanka Xirale oo haatan ku sugan yahay taliyuhu waxa uu boqday dhismaha saldhigga booliska oo dib habeyn lagu wado sidoo kalena waxa uu taliyuhu la yeelanayaa kulamo ku saabsan amniga bulshada Xirale ku nool si uu ugu kurgalo xaaladda amni ee deegaanada Galmudug taliska cusub ee booliska Galmudug ayaa waxa ay dadaal ugu jiraan sidii ay ugu guuleysan lahaayeen in nidaam amni ee boolis la gaarsiiyo degmooyinka iyo sidoo kale deegaanada Galmudug